السلام عليكم صحابتا وادin salaamay waa walaalkiina Dirsman janalka daawanaysiina waa Daljir Editor sidii aad ognahay waxaan ballan qaadnay koorso Capcut ah oo video editing free ah hadda waxaan bilaabi doonaa koorsadana qaybta introduction-ka soo dhawaada marka la soo dhawaada asxaabteeda qaaliga ah oo waqtigooda qaaliga ah ii horay sidii aad ognahay video editing marka la dhaho waxaa kugu soo dhacaya computer iyo waxyaalo badan kugu soo dhacay laakiin hadda waa la gudbay dunidii waa ay fududaatay waxaa jiro application badan oo markii muuqaal lagu sameeyo isdhahayo waxaa lagu sameeyay computer lagu sameeyo isdhahayo jiro maanta waxaan sameyn doonaa application kamid applicationkaas kaas la yiraahdo Capcut ma rabo inaan warkeedu ku badiyo waayo waxaa ogahay inaan Soomaali nahnay dulqaadkan uu yar yahay waxaa gulagay doonaa muhiimadeena tooska ah koorsaan si u shaqeyn doonto waxaa jirta laba group oo koorso lagu soo gudbi doono WhatsApp iyo Telegram WhatsApp-ka wixii fariimo ah Telegram-ka waxaa wixii video oo cashir ah sana camal muuqaal kusoo duuba kadib Telegram-ka soo dhiga xagga asxaabta ka daawo doonaan labadii habeen waxaa la soo geli doonaa hal muuqaal sida habeen kale qofka isugu day muuqaalka tusaale sabdada soo geliyo muuqaalka xiga wuxuu noqon doonaa habeen isniin ah waxaan rajaynayaa inaad tasna fahanteen hadda waxaan gudagali doonaa application-ka waxaana furo doonaa screen-ka telefoonka intaan screen-ka u gudbin waxaa wataa hal codsi kaasoo ah waa ogahay inaad taqaanid sida text loo qoro waa ogahay inaad taqaanid si background loo jaro waa ogahay inaad taqaanid si application logo loo dhaho waa ogahay inaad taqaanid sida application-ka effects loo geliyo laakiin waxaa jira qof walaalka ah ama dad walaalaha ah intaas aqoonin aniga course waxaan kasoo bilaabi doonaa hoos marka adi hadhiin hadhow comment ha soo qoran ah nin waxaan waan naqaanaa nin waxaan ugu boojin nin usan ani boojin ma yahan laakiin waxaa ogahay inay meesha joogaan dad xitaa weli application-ka telefoon ku degsanin oo haddii kow application soo degsanayana ogaah meel laga mar aan aqoon marka waxaa waaye in hoos kasoo bilaabo marka hadaad taqaanid maasha allah si koros xirfadda training si samee hadhow qeybaha waa la soo gaaraa mafan marka qeybaha la soo garo daaqad soo gal waxaa rajayna taas inay fahanteen igu raaci doontiin mahadsanidin haddana waxaa aadinaa screen-ka telefoonkeena Hay asxaabta soo dhawaada hadda waxaan bilaabi doonaa introduction-ka Capcut-ka anagoo sharxi doona toolskiisa markaad soo furitaan ayuu kusoo bixin doonaa waxaa ka heli doontaa App Store-ka iyo Play Store-ka waan free hadda waxaa kan koowaad waxaan baran doonaa sida loo soo geliyo muuqaal ama video Capcut waxaad daawan doontaa new project kadib waxaad raadinay sawirka ama video-ga rabtid inaad habaysid video-ga rabtid inaad habaysid markaad soo gelisid waa ujeedin hadda waa kaas hadda waxaa bartay si loo soo geliyo muuqaal Capcut okay sidee marka aad jaritaan ku samayn kartaa tusaale hadda muuqaalka halaha rabina isaga jari kartaa saacad tusaale saac camal marka hadda halahan hala is diyaariyahay waaye oo istoosiyahayo kadib meesha talaabada markuu bilaabaya ka jaraynaa muuqaalka taabo meesha split ku qoranta u horeysa taabo kadib muuqaalka aad rabto inaad delete dooro kadib delete taabo ma fahanteen kan kalena asina sidoo kale waaye loogadan iska delete tore taabo muuqaalka split iska delete sida muuqaalka hore saa hore ku jar lahayd iyo saa gadaal u jar lahayd waa ku bare hadday tan dhexda ka jirto waxaa samayn kartaa dhexda tag taabo split inta tag haddana split muuqaalka dhex waa iska tuuri kartaa marka delete marka waa kaasaa waxaa rajeynaa inaad jarjartaan ka fahanteen okay soo celi saa u jeedin marka toolska Capcut-ka waa badan yahay saa u jeedin markii la joogo Capcut-ka toolashiis waa badan yahay muuqaalka dad hadda taaban oo kaleeto saa u jeedin waxaasoo dhan waxaa arkaysin waa tools wax lagu dhidgareeyo marka mid mid ayaa u fiirin doonaa wasal socono kan waa kii wax lagu jaraa split-ka waaye kan waa kii wax lagu jaraa split-ka waaye kan asana speed-ka waaye animation-ki speed-ki slow motion-ki waxaas waaye saa u jeedid okay kan animation-ka waaye aad taqaanay fahanteen okay hadda waxaan soo baranay split-ka jaritaanka speed-ki iyo animation-ki kana waxaa waaye focal remover-ka waaye waxaa kuu soo haray style-kan waa taqaanin waa animation-ki waxaas
saa ujeediin daad muuqaalkaas camal uu noqonaa waaye. Kadib saa ujeedid delete waaye markuu baraayo. Tracking facekan waxaa waaye inaa la raacdo facekaaga dhaqdhaqaaqiisa ma fahamtay oo muuqaalka in la raacdid waaye. Sharaxaad kale waa soo sharxi doonaa asine. Kan codka laga dheereeyo laga gaabinayo waaye. Crop hadaa rabtid muuqaalka inaad crop ku sameysid ama aad rabtid inaad kala jeedisid waa kaasaa. Rotate hadaa rabtid inaad ku sameysid crop hadaa rabtid waa kaasaa ma fahamtay ayu nooc. Out frame hadaa rabtid size social media hadaa rabtid waa kana out frame sida TikTok, Instagram, YouTube iyo Instagram ma fahanteen. Saa ujeedid waa kuwaas ayagana waa diyaarsan yihiin. Kan ma lidin baraayo waxaa waaye soo dhaweynta muuqaalka iyo waxaas ujeedo gees muuqaalka u baxaa ma fahanteen. Toosi cyclex kale waxaas. Kan background remover waa cut qoran tahay ujeediin. Saa ujeediin kana waxaa waaye overlay muuqaalka kan maana overlay ahaan uu kaaga dhigaa in macnaha hadaa copy hadaa kan dhahno copy hadaa dhahno u laabano add overlay ujeedaa saas oo noqonaa. Overlay muuqaalka kaaga dhigaa. Intii wuxuu noo marayay overlaygaas filterskan waxaa waaye kii colorkii waxaas waaye. Adjustment sidoo kale markaa filter saartid ama color saartid ku saxaysaa ma fahamtay. Cagaarka iyo waxaas hadaa rabtid inaad u badisid. Kan waa lidin baraa waxaa waaye beauty salon-ka camal waa make-up iyo meesha soo dhex geliyo ma fahamtay. Faceka smooth ka dhigi hadaa smooth ka dhigi fiiri. Faceka smooth ka dhigi iyo waxaas oo dhan meesha ku jiro ma fahamteen. Body sidoo kale inaad qortid. Sidoo kale mask-iga waa kana asine. Copy waaye tan replace muuqaalka inaad muuqaal ku bedeshid. Audio inaad soo gelisid. Motion blur-ka adiga CapCut-ka waa badan yahay. Kan waxaa waaye codka shucaaca inuu reebo ma fahamteen. Saas lee dhehaysaa waxaa waaye shucaaca uu kaa reebaa gadaal ka yeeraa ma fahamtay. Kanna beatska waaye ma fahamteen. Beatska musiga dhirig meesha ku dhahayo uu kuu sheegaa ma fahamteen. Adina hadaa rabtid ku darsan kartaa add beat dhihi kartaa. Marka CapCut-ka interface-kiisa saas waaye oo tools-hiisa iyo wixiisa u shaqeeyaan. Kuwana waxaa waaye kuwa aas ku inta badan la isticmaalo waaye ma fahamteen. Haday noqoto jarjaritaanka audio-ga, textiga, overlay-ga, effects iyo waxaas. Effects waa badan yihiin. Waxaa video noqon karaa, body noqon karaa, photo noqon karaa. Video hadaa fiirisid waxyaalahan waaye. Hadaa body fiirisidne waa waxyaalahaas. Xanaaqi oo kaleeto iyo waxaa waaye indhaha oo laserka iyo balanbaalista iyo waxaas ma fahamteen. Marka waxaa rajeynaa inaa ratio waxaa waaye TikTok iyo waxaas kidaa hor u saaran camal waaye. Marka asxaabta waxaa rajeynaa in macnaha interface-ka CapCut-ka aad fahanteen ma fahamteen. Oo hada tools-kiisa u shaqeeyaan iyo waxaas aad kala ogaateen. Marka waxaa rajeynaa muuqaalkan ka faa'iideen. Markaas soo dhawaada. waxaan rajeynayaa muuqaalkan wax ka faa'iiday oo aan wax ka fahantay tooliska CapCut iyo sida uu u shaqeeyo. Muuqaalada si ay soo geli doonaa la socda barta Telegram-ka. Soo dhawaada mahadsanidin.